السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عن تعافيمات ما وحني وضع هيلب أري إيو بريسي فضلو كريي وقد إني إيد الشلي مركا هيلبكا وحن كسو بحي فريزركا مركا 3 دقيقة سو كريي أو برشر كان كو كريي إلا بركو كدعو كدمنا وصو دقي أو بيقا وانكسو دقي بيهيسي أو مرقين سليد لهانا وكدادي marka dhaladaasaan kusoo diyaarsaday waxaan rabaa inaan qudaartii kale ku darsado kadibna ovenkaan gelinayaa xoogaa baradhaan ku darsanayaa oo aan si waaweyn u jarjaray oo rabo hilibka inay la karto. hadda waxaan soo jarjaranayaa marka aan ku darayaa also toon oo sliced aan kasoo dhigay in yar oo huruud aan ku daray iyo xawaajiga aniga aan sameeyay marka barbaroonigaas labada nooca hal jab midkiiba aan ka goostay oo ku soo daraayo marka waxyaalaha cuntooyinka lagu dhanaaniyo sida seasoning ka dhanaan kale iyo maraq digaag toona ma isticmaalo waayo maraq digaaga wuxuu keenaa dhiikar marka gabdho cuntada ku darana jiro wali marka ha iska daayeen caafimaadka dabcan wax ka muhiimsan ma laha marka hilibka marka iyo qudaarta waxaan rabaa inaan geliyo ovenka marka waxaan ku karnaa dab yar aad u yar 350 ilaa 3 saacadood ku jiraa marka hilibka hadda waxaan kusoo darsaday basashi iyo 2 qaado oo olive oil iyo cusbada waa optional marka daboolku wuxuu u fiican yahay aniga hadda biyo kale kuma darin iyo wax kale saliida iyo qudaarta dhacaankeeda iyo daboolka aan dabool steamka ka dhigayo ku heenaysa wax iga gubanayo mala alshaan oo intaas ku bislaanay hilibka wax kale oo biyo iyo qoyaan kale kuma daraayo marka dana iska qabsaday jikada inteeda kale iska hagaajiyay saacadahaas hilibka iska sii gashaday bariiskana gadaalan ka karin doona ilaa iyo adiga 2 saacadood ka dambe markuu 2 saacadood hilibka ku jiray aan bariiska diyaarsanayo insha Allah marka in la daboolo waa muhiim hadii kale kooma bislaanay hilibka hadda 2 saacadood oo hilibkii ku jiraa marka haddaan soo laabtay hawlo badan ay qabsoomay alxamdulillah bariiskii aan karsanaya oo waxaan rabaa inaan waxyaalo badan kuma daraayo bariiska a lot of seasoning kuma daraayo iyo xawaajiyaal badan toona kuma daraayo waxaan ku soo darayaa hadda saliid yar ay ugu jirta digsigaas waxaan ku daray basal iyo toon aan sliced u jaray iyo xawaaj aniga aan sameeyay bariiska maanta aan karinayo waa basmati marka already waa soo dhaqday marka bariisku ay dhaqan yahay diyaar waaye marka saliida waxaan rabaa qudaarta inay soo qaleysanto oo basashiis fiican igu soo qaleysmaan xawaajiyaadka waxaan ku soo darayaa 2 xabo oo liinta dhanaan qalalan iyo xawaajkii aniga aan sameeyay iyo xawaajin duub oo sidiisa ah hadda bariiskan ku soo darsanayaa kadibna biyo kulul aan ku darayaa biyaha waa soo kululeystay maanta insha Allah bariiskii aan ku soo darsaday marka hadda biyaha ay kululaanay marka biyaha markaan ku daro kadib waxaan ku karinayaa 8 daqiiqo kaliya marka waqti dheer iyo jika dhex taagnida aad ay u fududahay hawsha markii aad sidaan oo kale aad barato inaad ovenka geliso hilibka oo kale qiiq ma laha guriga kaamaha laabayo oo ma lahan hilibka guriga hilibka lagu karinayo waa dareemaysaa markii lagu falfalnayo digsi afka kala hayo maanta oo dhan bari hilib isku daysin aad ku karisid laakiin haddii ovenka aad gelisid oo dabkana u gaabisid wax waqtina kaama gelin gurigana kaama geliso hilibka caraftiisi bariiska saan igu soo baxay ma sha Allah wuu ii karay keep warm aan u taamanaya
oo wuxuu ugu haynaa kuleelka digsigan anigana waa iska sii quraan iska soo akhrisanaa xoogaa ama kitaab ama buuga iska akhrisanaya hadda soo laabtay oo waqtigii la imaan lahaa waaye caruurta maanta way iga maqnaayeen iyo aabahood meel 2 saacadood noo jirtay aadeen marka mar dhow hadda way imaanayaan hadda waxaan diyaarsanayaa marka cuntadii salarkaana diyaarsanayaa salar badan maanta ma sameynayo oo hal xabo larasa iyo xoogaa grape tomatoes maadaama qudaar badan aan ku daray hilibka ma sameynayo qudaar badan salarka macnaha ma badinayo marka mar dhow hadda way soo dhow yihiin inaan qadadooda diyaariyaan rabaa oo aan miiska ugu sii diyaariyo marka yaanyada 2 leeyaan ka dhigaa halkii xabo sideedana waa loogu darsan karaa dhib ma lahan hilibkii waa kan maasha Allah saan ku soo baxay aad u jilcan yahay baradhada mooga qudaarta kalena way ku baabaaday marka xoogaagaas basal iyo kabsar caleen iyo liin aan si islaysta u jarjaray baa halka ii yaala weelkana ku diyaarsanayo marka bamboo plate waa saxan weyn oo alwaax masha Allah bariiska dhexdaan geliyay hilibkiina geesaan ka soo saaray qudaartiina way ugu dambaysaa marka iyo liintii oo kor ka soo saaray masha Allah saana u diyaariyay qadadoodii hadda ayagii way soo qabaysanayaan oo miiskaana loo isku soo diyaarinayaa si oo qadadan loo qadeeyo marka saana miiska u keenaa saxamada way u yaalaan already cabitaankooda yarka iyo qadadan aad u fiican tahay runtii laakiin waa hilibka ariga waa lagu cayilaa of course caafimaad badan ma lahan marka waa in uun marmar leh anaga hadday ugu badato 3 week hal maalin ama bishii hal mar ka badan ma cuno hilibka ariga iyo hilibka gududan hilib la'aadna ma soo gadnabo marka kalluun iyo waxaas iska cunaa ama marmar chicken marka masha Allah saan ku soo baxay qadadeeni aad iyo aadaan uga helnay waa cunto Soomaali aad iyo aad u macaan oo lagu daran waxyaalo badan oo caafimaad darro sida maraqa hilibka maraqiisa waxba lagu ma darsado waa la iska daadiyaa hilibkana ninka markii oo xalaal meedka aad joogtid hilibka hadii marka uu miisaan ku saaro aad tiraahdo faadka iga reeb uu ku sameynayaa kadibna biyo inta lagu karkariyo hadii digsiga xataa ku karinayso 10 daqiiqo biyo ku karkari kadibna iska daadi maraqa saliid leh masha Allah waa kuma santiin daawashadiina hadii video ka hesheen walaalaha kala share gareeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.